جون دي ركفالا mid ka mid ah shakhsiyaadka ugu arxanka darnaa markay noqoto ganacsiga iyo sidoo kale lacag samaynta. Haddaba sidoo ninkan ku noqday shakhsiga ugu hantida iyo awoodda badan casrigan aan joogno. Sidoo kale sidoo ninkan ku dhisay boqortooyo kor u dhaafaysa 1 trilyan waliba asagoo ka soo bilaabay eber. Haddaba xalqadeena maanta waxaan isku eegaynaa mid ka mid ah shakhsiyaadka ugu hantida badnaa casrigan aan joogno. Inagoona sidoo kale eegayna maxaan ka baran karnaa. Tycoon John D. Rockefeller, the world's first billionaire. haddaba saaxiibayaal intaynaan u guda galin muuqaalkeenan waxaan rabay inaan idin ogeysiiyo in bilii ugu dambeysay aan ku guda jiray diyaarinta barnaamijka ka gedisan barnaamijyadii hore aad iga barateen. Barnaamijkan oo noogu talagalay bisha barakeysan ee Ramadaan. Inagoona sidoo kale barnaamijkan uga hadlayna qaar ka mid ah shakhsiyaadkii ugu hantida badnaa ee soo maray dunidan casriga ah. Iyo sidoo kale waxaan ka baran karno sidoo kale inay nagu soo kordhin karaan shakhsiyaadkaas sheekooyinkooda. Haddaba waxaan rajaynayaa inaad ka wada heli doontaan isla socod wanaagsan. Sidoo kale ha ilaawin inaad notification-ka furataan si isla markii muuqaalkan soo geliyo aad uga war heshaan. taariikhdu waa July 1839 halkaas oo goob lagu magacaabo Richford oo ka tirsan dalka Mareykanka oo ku dhashay ninkan ay qisadan ku saabsan tahay ee lagu magacaabo John D. Rockefeller. Haddaba John-kan ayaa wiilka ugu weyn lix carruur oo ay dhaleen waalidiinta lagu kala magacaabo William iyo sidoo kale Eliza. Sida yaataba John aabiye William ayaa la sheegay inuu ahaa businessman sidoo kalena uu kala safro wadamada dariska ah asagoona mar walba mid ka maqnaada qoyskiisa iyo sidoo kale carruurtiisaba. ayadoona qoysku ay markaas ku jireen xaaladii ugu xumeed marka ay noqoto dhaqaale ahaan. Dhanka kale John hooyadii ayaa ahayd mid mar walba ahayd mid u dagaalanta sidii ay ilmaheeda calooshooda u buuxin lahayd. ayadoona sidoo kale ahayd mid mar walba sida ugu adag u shaqeysa. Haddaba noloshiisa ahayd ee uu yaraankii John ku caqliyeysay ayaa noqotay mid asagii aad u xanuujisa. iyo sidoo kale aragtida uu mar walba arkay sida adag ay hooyadoodu ugu shaqeynayso sidii ay ayagu u korin lahayd. Haddaba yaraankii John ayaa isla waqtiyadaas u go'aansaday sidii uu hooyadii culayska uga qaadi lahaa asagoona diyaar u noqday sidii uu wax walba ugu sameyn lahaa qoyskiisa dartiis. waxay yaataba John ayaa isla markii uu bilaabay inuu ka shaqeeyo shaqooyinka yaryar heer uu ilaa markii dambe gaadhay inuu xitaa deyma ka bixiyo tuuladiisa. sida yaataba dhanka kale aabihi ayaa isaguna ahaa mid qoyskii gebi ahaanba ka go'ay asagoona sidoo kale go'aansaday inuu xaas kala guursado sidoo kalena uu nolol cusub ka bilowdo magaalo aysan cidna ka aqoonin. waxay noloshii sidii yaataba ugu dambeyntii John iyo qoyskiisa ayaa si toos ugu soo wareegay sidoo kalena soo degay guri ku yaala Cleveland magaaladan oo sidoo kale ka tirsaneyd Ohio halkaas oo ay noloshii si tartiib isugu bedeshay. haddaba marka uu John galay da'da 16 waxa uu sameeyay go'aan aad u halis badan asagoona waqtigaas kaga tagay iskuulkiisa gebi ahaanba sidoo kalena xoogga saaray sidii uu ula wareegi lahaa mas'uuliyadda qoyskiisan. waxay yaataba waxa uu meel walba shaqo ka raadiyay waxa uu ugu dambeyntii shaqo ka helay meel xisaabiye ah ayadoona shaqadaas ay waqtigaas John uga dhignayd wax walba. sida yaataba inkastoo uusan John lacag badan ka helaynin shaqadan haddana inta yar ee uu ku helay ayuu ahaa mid ku biilay qoyskiisa asagoona xitaa mararka qaar mid ka bixiya lacagtaas xoogaa caawimaada maadaama ay John hooyadii ahayd mid aad u adag diintooda sidoo kalena jecleed inay dadka caawiso ayadoona sidoo kale wiilkeeda ku tarbiyadeysay sidaas la mid ah. haddaba John ayaa mid sidii 2 sano ku shaqeeya ayadoona sidoo kale shaqadiisa oo fiicnaatay awgeed loo kordhiyay mushaarkiisii halkaasuna bilaabay inuu arursado xoogaa lacaga. waxa uu xaalku sidaas ku sii socdo waxa bilaabatay in kambaniga hoos u dhac ku yimaado ayadoona isla markaas ay bilaabatay in John mushaarkiisii sidoo kale hoos u dhac ku yimaado. laakiin waqtigaas ay wax walba dhacayaan waa goor uu John mid talaabadiisii xigtay ka sii fikiray asagoona ugu dambeyntii shaqadii halka uga tagay sidoo kalena qorshaystay aasaasidda kambanigiisa. haddaba John waxa uu heshiis la galay saaxiibkiisa oo lagu magacaabay Maurice Clark ayagoona isku darsan lacag gaadhaysa 4,000 sidoo kalena bilaabay ganacsigoodii. ganacsigaasuna ahaa iibinta hilibka raashinka iyo sidoo kale adeegyada kale. waxay yaataba bilaabashada kadib ganacsigooda ayaa mid marba mar ka sii dambeysay kobca ayagoona dhammaadkii sanadkoodii ugu horreeyay ay soo xareeyeen lacag kor u dhaafaysa $17,000 midanuuna ahayd lacag aad u badan waqtigaas. waxay yaataba midan ayaa ahayd oo keliya bilow. haddaba waayadii hore waxaa jirtay in helidda iyo sidoo kale raadinta macdanta saliidda ay aad u adkayd ilaa laga soo gaaro taariikhdu markaad 1859 markaasoo ay bilaabatay in saliiddii la daafaydo. The discovery of oil in western Pennsylvania in 1859 set off a frenzy of production. haddaba John ayaa mid aan wax waqtiga iska luminin asagoona weliba isku diyaariyay sidii uu fursaddan uga faa'iidaysan lahaa. dhanka kale John ayaa mid ku baraarugsanaa in hantida dhabta ay ku jirto sifaynta ee aysan ku jirin saliidda qayriinka ah. haddaba John ayaa mid sugo oo keliya natiijada iyo sidoo kale inta laga soo saaray saliidda asagoona isla markaas la soo saaray iibsan jiray. dhanka kale meeshan saliidda laga soo saaray ayaa ahayd Pennsylvania oo marka loo eego magaaladan uu John jooga ahayd meel xoogaa ka fog. midda waxaasoo dhan ka sii darnay ayaa ahayd in sidoo kale aysan waddo toos ah lahayn
waxay haataba John waxa uu si taxadar loo sugay dawladii iyo sidoo kale inta ay ka dhisayso waddo tareen taasoo u dhaxaysa Pennsylvania iyo sidoo kale waddankiisa sidaas darteedna isla markaas hawshiisa bilowdo dhanka kale Rockefeller ayaa ahaa mid sii dhista tiim abaabulan iyo sidoo kale bangiyo diyaar u ah inay maalgeliyaan mashruuciisan waxay haataba markii la gaadhay 1863 John ayaa ahaa mid si toos ah u galay ganacsiga saliidda asagoona garab ka helay warshada macdanta ee Cleveland haddaba John ayaa bilaabay in si tartiib u dhexgala ganacsigii asagoona ahaa mid shaqaalaysiiya tiim diyaarsan kuwaasoo isugu jiray kemistiyaal iyo sidoo kale injineero ku xeel dheer sifaynta macdantan haddaba John mid uu ku xeel dheeraa ayaa in macdanta la soo saaro uusan hal dhibic qasaarnin halka la tartamayaashiisa qaar ay ahaayeen kuwa saliidda xumaata ku dari jiray webiyada sida yaataba dadaal dheer kadib John ayaa ahaa mid la tartamayaashiisa meel cidla uga tagay asagoona sidoo kale ganacsigiisa hore saaxiibkii kaga iibiyay lacag gaadhaysa 72,000 asagoona markaan ahaa mid awoodiisii oo dhan isugu geeyay ganacsigii saliidda haddaba isla 5 sano uu ku jiray ganacsigii John ayaa bilaabay arrin kale oo argagax ku noqotay dhammaan la tartamayaashiisii sida yaataba John iyo kambanigiisa Standard ayaa waqtigaas ahaa midka ugu faa'iidada badan marka loo eego dhammaan kambaniyaasha kale ee saliidda ka ganacsada laakiin arrinta kale ee jirta ayaa ahayd in John aysan intaasoo kaliya ku filnayn asagoona sidoo kale u oomanaa wax intaasoo dhan ka weyn To him, there was no reason why there should be several competitors in any given market. Why not take simply the best, the most efficient producer, the most efficient distributor, which of course was Standard Oil, and give them the entire market? And of course, people wouldn't give it to him. He had to take it for himself. And he was ruthless in doing so. haddaba John ayaa bilaabay sidii uu iibsan lahaa dhammaan kambaniyaashii sifeeyayaasha ay la tartamayay asagoona ahaa mid ku cadaadiyay sidoo kalena aan wax doorashaa siinin kambaniyaashaas haddaba waxa uu John samayn jiray ayaa ahayd in ganacsiga saliidda uu raqiis ka dhigo sidoo kalena uu dhulka geeyo sida yaataba maadaama uu John ahaa midka ugu faa'iidada badan asaga khasaaro badan kama soo gaadhaynin laakiin kuwa khasaaraya ayaa ahaa la tartamayaashiisa iyo sidoo kale kambaniyada soo kacayay midanuuna kalifaysa in kambaniyaashaas aysan wax doorasho oo kale u soo bixin aan ka ahayn in dhammaan sheerarkooda ay ka iibiyaan John ama sidoo kale ay meel cidla soo istaagaan haddaba John ayaa isku bedelay mid naxariis laawa ah markay noqoto ganacsiga asagoona ahaa mid wejigaas bahalnimada ku qabsaday dhammaan ganacsigii saliidda oo dhan ayadoona dhammaan ay macaamiishu ku khasbanaadeen inay saliidooda ka iibsadaan John iyo sidoo kale kambanigiisa Standard sababtuna ma ahayn in saliidoodana ay ka fiican tahay saliidaha kale ee waa inaysan macaamiishina haysaninba doorasho kale haddaba John ayaa isla markiiba cadow badan samaystay ayadoona xitaa wargeysadii waqtigaas ugu waaweyn ay shirkaddan ku tilmaameen inay tahay shirkadda ugu arxanka daran waxay haataba John waxaasoo dhan dhegmo uusan u dhigin asagoona sii laba jabaaray hawshiisii asagoona sidoo kale ahaa mid heshiise la sameeyay shirkadaha tareemada si ay ugu fududeeyaan hawshiisa sidoo kalena discount ugu sameeyaan haddaba John ayaa ahaa mid hantidiisii marba mar ka sii dambeysay sii laba jabaaranto asagoona sidaas la mid ah kambaniyo kale isku sii fidinayay waxay haataba laakiin eedaymihii ninkan ku aadanaa ayaa sii laba jabaarmay markii ay soo baxday gabadh wariya oo lagu magacaabayay Aida Tarbell gabadhan oo ahayd gabadh aabaheed oo shaqo la'aan dhigay ninkii lagu magacaabayay John haddaba gabadhan ayaa ka diyaarisay maqaale xaqiiqo sidoo kalena banaanka keenayay kambanigii Standard iyo sidoo kale musuqmaasuqyadii u waday ninkii lagu magacaabayay John D. Rockefeller intaasoo kaliya ma aysan ku ekaynin sidoo kale gabadhan ayaa banaanka keentay sirtii faamilka Rockefeller ee aabahood haddaba intaas kadib Rockefeller ayaa bilaabay inuu naftiisa u cabsado asagoona sidoo kale ahaa mid indhihii dadka iska qariyay laakiin dhibaatadu intaasoo kaliya uguma ekaanin John asagoona markan wejihi doona dhibaatadii ugu darneed iyo sidoo kale ninkii boqortooyadiisan burburin lahaa ninkaasoo ahaa madaxweynihii Mareykanka ee waqtigaas haddaba waqti dheerba ma aysan ka soo wareegin ayadoona isla markiiba warqado eedeymaha miiska loo soo saaray John eedeymahaasoo weliba kuru dhaafiyay 21 dacwo eedeymihii oo badnaa awgeedna maxkamadda ayaa qaadatay sanado badan waxay haataba ugu dambeyntii 1911 kambanigii ayaa lagu helay dhammaan eedeymihii lagu soo eedeeyay ayadoona kambanigii Standard lagu xukumay in kambanigii sidoo u dhanaa loo kala qaybiyay kambaniyo dhowr ah ayadoona kadib 41 sano kadib ugu dambeyntii boqortooyadii John D. Rockefeller ay dhulka soo taabatay haddaba arrinta la yaab kale ayaa ahayd in John faa'iidadiisii uu ka helay kambanigii Standard ay weli isla meeshii taagnayd sababtuna ahayd in John uu heshiisay hoosaadyo la saxeexday kambaniyadii hoos imaanayay kambanigii Standard oo kambanigii haddii uu gacantiisa ka baxay aysan ka dhignayn in sidoo kale ay sheerarkiina gacantiisa ka baxeen sidoo kale faa'iido walba uu kambanigii la kala qaybiyay ee Standard uu sameeyay waxay ahayd sidoo kale faa'iido uu soo xaruunaysay John D. Rockefeller asagoona marba mar ka sii dambaysa ku sii dhawaanay wadadii uu ku noqon lahaa ninka ugu hantida badan dunida haddaba John markuu noqday ninka ugu hantida badan waqtigaas sidoo kalena kambanigii uu gacantiisii ka baxay John ayaa bilaabay in noloshiisii uu si deganaan lagu noolaado asagoona sidoo kale waqtigaas kale da'da 70meeyada waxay haataba arrinta kale ee la iloobi karin ayaa ahayd in sida John uu ugu adadka dhanka ganacsigiisa oo sidoo kalena mid aad ugu fiicnaa dhanka waxbixinta iyo sidoo kale deeqda asagoona ilaa bilowgii ahaa mid aan marnaba ka tagin waxbixinta haddaba taariikhdu markaad 1913 John ayaa asaasay foundationkiisii
kaasoo ugu magac daray The Rockefeller Foundation, asagoona hogaamiye uga dhigay foundationkan wiilkiisii iyo sidoo kale ninkan oo lagu magacaabay Frederick. haddaba deeqaha uu bixiyay ninka lagu magacaabo Rockefeller ayaa la sheegay inay kor u dhaafayaan 10 bilyan, ayadoona sidoo kale ay jiraan intaasi in ka badan oo horey u soo bixiyay safarkiisii, ayadoona sidoo kale deeqdaas ay ilaa maanta socotay weli uu John dhintay 1937. haddaba inkastoo ninkan dhanka ganacsiga naxariis laawo ka ahaa, haddana waxaan la iska indhatiri karin ayaa ah in sidoo kale uu lahaa weji kale oo naxariis leh. haddaba isku soo wada duubo John D. Rockefeller ayaa tusaale muujinaya sida hal-abuurka, dadaalka iyo aragti fogida ganacsi ay qofka ugu horseedi karaan guul aan innaba caadi ahayn. sidoo kale casharka muhiimka ee meeshan ku jira ayaa ah in qofku uu mar walba yeesho hadaf iyo adkaysi, xeelad ganacsi, samafal iyo saameyn wanaagsan. sidoo kale taariikhdan ayaa ina xasuusinaysa in hantidu aysan ahayn keliya waxa uu qofku kasbado, balse sidoo kale waxa uu ka tagay iyo saameynta uu reebo. haddaba maxay kula tahay adiga? sidoo kale maxaad ka baratay mowduuceenan maanta?